munaasabad ballaaran isla markaasina loogu baroordiiqayo marxuum Ruqiyo Siciid Ayaanle oo toddobaadkan gudihiisa laga helay meedkeeda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta waxay ka qabsoontay hotel dheer magaalada Burco waxaana munaasabadaasi oo kulmisay bulshada qaybaheeda kala duwan goobjoogka Sultan Siciid Yuusuf Xaaji Ducaale Chief Caaqil Cabdiraxmaan Cilmi Ducaale Caaqil Cali Aadan Reegal haween dhalinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo aad u tiro badan waxaana gorantii munaasabadaasi ka hadlay Chief Caaqil Cabdirashiid Cilmi Ducaale oo gorantii wadacsiyo diray dhammaan beeladii uu ka baxday marxuum Ruqiyo Siciid Ayaanle waxaana dawladda Soomaaliland iyo ciidamada booliiska ku hambaliyay sida ay u soo qabteen gacan ku dhiiglihii dilay marxuumadaasi waxaan ka tacsiib u dirayaa dhammaan reer Siciid Ayaanle gaar ahaan Maryam oo jaamac iyo reer Axmed Bile sida Maxamed Axmed Bile iyo caruurtii ay xubin ka dhimatay waxaan ku tacsiibinayaa geerida xandarayda ku timi Ruqiyo Siciid Ayaanle in Allah uu raajicuun hadaan tacsiida kaga baxo waxaan u gudbayaa ciidanka booliska Soomaaliland oo uu hogaamiyo Fadal oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno sidii wanaagsaneed ee maxaa soo qabteen dadkii dhaqaaqayaasha ahaa لسكلنا واحد مناسبة داسي قال عاقل علي هذا الرجال يقيبه كمدان وينه مناسبة داسي كسو قيب قلي أي واحد تعسي تيراني له درين دمان به الذي قرابة ذيك بعد مرحوم رقية سعيد أيانله يدمان بشعب وينها رير سومالي لان وعني حكومة السومالي لان وسو تشدين يسيد اقصى عجالة دور كأن نعدي فالكاسي جيستي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هل كنت حسوح عن قدر إياه مرحومة رقية سعيد Ayaanle eheladii ay ka geeriyootay carruurtii ay ka geeriyootay odaygii ay ka geeriyootay waalidkeed walaaladeed waxaan leeyahay Ilaahay sabir iyo iimaan hayna ka siiyo naxariis jannoodii roobdana Ilaahay ku leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan tacsiib uga dirayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii ay ka geeriyootay مرحوم رقية سعيد أيانله رير أحمد بله يا رير سعيد أيانله دمان وحمد ريا تعسي أنت كذب وحان دولة شرفت له يعني قعد سنة دانو نهي دلوينها نتقرر أركا ونأكسن سيدا ونأكسن أي وش قيام لوها لم حمد هاد كذي عادي لوها ملياننا دن وحان لا هاي سيدا ونأكسن وعدالة كتشرتو oo gasar ku shaqeynayo in lagu soo afjaro sheekada الموت يعني مرحومتاس waxay dhiman lahayd maalinteedii una way dhimatay laakiin waxa ay ka tagtay taafir aad u daran oo dhamaanba dadyo ku nool Soomaaliland damqay taas oo ah qatli dil iyo iyadoo aqwaasha qaar ay sheegayaan waliba xabaal nololeed in lagu sameeyay oo marxuumadu iyadoo oo maxay hayto ideen nool bal lagu riday godka gabagabadii munaasabadaasina waxaa soo afmeeray Sultan Siciid Yuusuf Xaaji Ducaale waxaanu yidhi oo dadka reer Soomaaliland meel ay joogaan badaafaha adduunka ku abuurtay tiiraayo iyo argagax gabar baa loo yeeray dayn bay ku lahayd xawaar baa loo sii qoday dad baa ka tashaday wadana waa ka tashaday way u yimaadeen way u timi waxaa muuqatay in telefoonkeedii laga qaaday iyadoo aan waliba nambarkii laga qortay talo lagu dilay waa wax aynaan arag oo aynaan maqlin oo dalkeena ugu horeysay oo dhibaato aynaan filaynin inay dhacdo waxaan leeyahay marka ugu horeysa tacsiib aan u dirayaa dadka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan khaas ahaan qoysaskii ay ka geeriyootay waxaan leeyahay samir iyo iimaan Ilaahay hayna ka siiyo saadiqa يعولسان إيادنا نحريستي جمال هكا ورابيو كعن كحق درن بادشي asiga tabaatay dilkan lagu la kacay marxuum Ruqiyo Siciid Ayaanle ayaa waxa uu noqonayaa midowga ku ah gudahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana gudahaan baadaladii munaasabadaasi laga soo jeedinayay isugu soo biirshubteen kuwa laga dalbanayo xukuumadda Soomaaliland in sharciga la horkeeno dadkii falkaasi geystay iyo kuwii gacanta ku lahaaba waa Khalid Bakhele wararka magaalada Burco.